bal ka waran haddii adigoo adduunka oo dhammi jiritaankaaga yuhuudnimo difaacayo aad disho ama aad iska dhigto inaad adduunka laf ahaantiisa dhibana u tahay aadna u dhiban tahay sabab la xiriirta haybtaada iyo dhedignimadaada. tani waa qisada actress-ka ama jilaaga Hollywood-ka ah ee la yiraahdo Gal Gadot oo isir ahaan Israa'iili ah. Gadot oo haatan ka mid ah jilayaasha dumarka ah kuwooda ugu horeeya ee shirkaddan ayaa dhawaan soo saartay muufigeeda la yiraahdo Snow White ka oo u qarxi waayay ama u miro dhali waayay sidii loo rabay. mid naadir ah ayaase ah in Gadot gadmiwaaga filimkeeda ay ku eedeysay Falastiiniyiinta iyo dadka taageera oo ay sheegtay in nacaybka ay isirkeeda u qabaan sababay in muufigeedu iibsami waayo. Just saying that, just expressing such a simple fact about who I am feels like a controversial statement. But sadly, this is where we're at today. bal ka waran haddii cidda aad tahay ay wax khaldan u muuqato. taasi waa halka aan taagannahay maanta. ayay ku bilowday doodeeda ah in colaadinta Israa'iil ay la kulantay filimkeeda dhibaataysay. And never did I imagine that on the streets of the United States and different cities around the world, we would see people not condemning Hamas, but celebrating, justifying. isma lahayn inaan dariiqyada Mareykanka iyo magaalooyin badan oo dunida aan ku arki doono dibadbaxayaal aan cambaaraynayn Hamas, balse taas beddelkeeda taageeraya u dabaaldegaya qiilna u sameynaya xasuuqa yuhuudda lagu hayo. jilaagan oo yaraanteedii la wariyay inay ka mid ahayd lana tababaratay ciidamada IDF-ta la yiraahdo ee yuhuuddu waxa ay doonaysay in iyada oo adeegsanaysa xeelada la yiraahdo baroor beenaada iyo xaaska ay dadka ka iibiso fikir ah in nacaybka isirkeeda loo qabo awgeed filimkeedu kici waayay, halka taa beddelkeeda ay hadalkan laftiisa kala kulantay cambaarayntii ugu xooganayd iyo in dhab loogu sheego in iyada iyo dadkeeduba yihiin kuwa gabood falkooda garabka ku hela.